waa sheeko kale oo xiiso leh oo cabsi ku salaysan. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe, videogana like, aynu bilowno qisada filimka. waa koox dhalinyar ah oo u dabaaldegaya qalinjabintii ka qalinjabiyeen koolajka, waxayna xaflad ku dhigteen xeebta. damaashaad iyo dabaaldeg badan ayay habeenka badankii ku qaateen. waxay sidoo kale habeennimada arkeen ukun weyn ama beed weyn oo xeebta dhinaceeda yaalay. subaxnimadii waxaa kicisay qorraxda kuleelkeeda. gabadhan magaceedu waa Marsha. subaxnimadii markay soo toostay waxay meel u dhow ka aragtay shimbir ee ciidda ama dhulku u jiidanayo. way naxday, waxayna istiri u soo sheeg asxaabtaada. balse intayna la hadlin waxaa dhulka ku istaagtay Kaylee. isla markiiba dhulku waxau bilaabay inuu jiito. si kastoo istilaadsaga caabi waa awoodi weydey. waxaa gaadhiga ka soo booday Jonah oo islaha badbaadiyey, balse isaguna dhulka ayaa bilaabay inuu hoos u jiito. wuuna kufay, halka Alex oo islahaa isna gaadhiga start oo ku badbaadi gaadhiga, balse gaadhiga ayaa nasiib xumo u shaqayn la. Mitch tuurtay haanta badbaadada, balse Jonah camuudii ama ciiddii ayaa waxay ahayd mid hoos u sii jiidanaysa marba marka ka dambaysa. ugu dambaynna waa uu quusay, isagoo qaylinaya, dhiiggiisuna dhulka si xun u galay. dhammaantood way fariireen, waxay qabtaanna ma garanayaan. Marsha ayaa gacanta dhulka u dhoweynaysa, waxayna dareentay magnetka hoos u jiidanaya. dhanka kale waxaa qaylinaya Gilbert oo foosto ku dhex jira oo cadaadisku isna ku socdo. kuleelka qorraxduna ee aad ugu dhacayso. waxaa kareemka qorraxda laiskaga difaaco u tuuray Alex, wuxuuna ku duleegay jidhkiisa. waxaa meel fog ay ka arkeen ukuntii ay xalay arkeen oo dilaacday. noolihii ku dhex jirana aanu ku dhex jirin. bahalkaasi waxuu yahay waxa dhulka hoos jira ee jiidanaya. waxay dhulkii ku tuureen hot dhog sandwichka laga dhigto. isla markiina dhulku waa liqay. waxayna xaqiiqsadeen inuu yahay baalku waxaa dilaya. Alex ayaa bilaabay inuu looxiyo istaba dhigto si uu dhanka kale ugu gudbo, balse nasiib xumo waxaa la siibanaya looxa amba alwaaxa, waxaanu noqonayaa mid u dhexeeya labada daraf. kuleelka dhulka ayaanu ku soo baxaya, waxaanu noqonayaa mid ka leefa caloosha. asxaabtiisu waxay ahaayeen kuwo qaylo keliya ay ka soo hadhay. muus xitaa dhulka ku dhacay waa uu jiitay baalku. Alex markiiba calooshiisu waxay bilowday caabuq nabara ah. xanuunkuna wuxuu ahaa mid marba mar ka dambeeya sii saa'idaya. waxaana uu jiibsanayaa miiskii. Ronnie oo ah gabadhan ayaa daamacday in gaadhiga halkiisa dambe ay ka boodo si ay u gaadho qolka yar, balse waxaa la siibinaya albaabka dambe ee baabuurka. faraha ayaanu ka qabsanayaa. Mitch iyo Marsha ayaa arkaya gaadhiga ilaalada xeebaha, waynu gacan haadinayaan. markuu askarigu yimaado waxa uu qaadanayaa inay cabsan yihiin. isagoo ku qaylinaya ayaa gaadhiga kasoo daadegaya, waxaanu soo dul istaagaya. Alex wuxuu sidoo kale isku dayayaa inuu caawiyo Gilbert oo foostadii ku dhex jiray, halka Ronnie ayidna gaadhigii weli faraha ka haysto. dhalinyartu way qaadan waayeen inaana askariga weli la liqin. askarigu waa aaminu leeyahay sheekadan ay uga sheekaynayaan, isaga oo haysta inay cabsan yihiin. iyaga oo weli wadahadalka u socdo ayaa askarigii waxaa dhulka kaga dhacaya furihii gaadhiga. soo qaadadu isidhaana camuudii waxay bilaabaysaa inay ku dhegto gacanta, ayaana dhulka marka hore hoos loo gelaysaa iyada oo goosanaysa. marlabaadkana isagoo dhanba way laqaysaa. Mitch oo weli saaran halka sare oo rabay inuu hoos u daadego ayaa tuwaalka amba shukumaanka loo soo tuuray. qabsaduu sidhaa wuxuu raacayaa hiigii oo isna dhulka ayuu ku dhacaya. camuudii ku dhacayna way liqaysaa isagoo qaylinaya, waxaana goobtii ku hadhay keliya dhiiggiisii. dhalinyarada inta noole way naxsan yihiin, waxay sameeyaanna ma garanayaan. waxaa dhankii gaadhiga u soo boodaysa Marsha, waxayna caawinaysaa Ronnie oo weli albaabka gacanta ka haystay. ugu dambayn way ku guulaysanayaan inay ka soo saaraan Ronnie, laakiin waxaa dhanka kale dhiiggiisu dhulka galay Gilbert oo weli ku jira foostadii. Marsha iyo labadii gabdhood waxay bilaabeen in looxyadii amba alwaaxii ay ka dhigtaan jidmar si ay ugu tagaan Alex oo weli dul jiifa miiskii. Marsha iyo Lily way ka gudbeen, iminkana waxay maraysaa markay soo tallaabi lahayd Ronnie, balse nasiib xumo Ronnie oo dhaawac ahayd way ku socon kari waayeysaa, waxaana ka dhacaysaa dhulka iyadoo qaylinaysa. isla markiiba camuudda ayaa hoos u jiidanaysa Lily waxay u carartay dhankii baabuurkii askariga iyadoo kaba ka dhigatay tuwaaladii amba shukumaankii, wayna badbaaday. balse bahalku waxau bilaabay inuu jiito Gilbert. ugu dambaynna hoos ayaa kula baxay foostadii oo keliyana ayaa meesha ku hodhay. habeennimadii ayay gaadhay. bahalkiina waxau bilaabay inuu si toos ah usoo weeraro Marsha oo gaadhiga askariga dul taagan ayaa soo qaadanaysa jiirkaanka shidaalka, waxayna bilowday inuu gubto bahalka, balse waa ka sii xanaajisay. bahalkuna waxaa isku dayaya xitaa
ahaa inuu daaqadda gaadhiga furto, iyaguna iska caabin ayay ku jireen oo daaqadda ayay xajisteen. Habeennimadii si nabad ah ayay ku seexdeen. Subaxnimadii markuu waagu baryey waxaa daaqadda ku soo garaacay nin, waxayna ogaadeen in bahalku aanu joogin. Caawimaad ayna ka heleen ninkii isagoo soo kaxeeyey dhankii magaalada, halka bahalkii dhulka ku hoos jiray uu kusii jeedo dekedda magaalada. Filimkan cabsida badnaana sidaas ayaa ku dhammaaday. Filimka magaciisu waa The Sun. Fadlan haddii aad ka soo gaadho muuqaalka halkanna waxaanu kaa codsanaynaa subscribe-ta inaanad iloobin. Mahadsanid. Waa inooyo filim kale oo cabsi badan oo xiisihiisana wata.